tiir baa naga baxay tusaale mudnaa gob baa naga tegay tudhaalo badnaa tog baa naga gudhay tashigu ku xidhnaa tiriig baa damay tuulada u shidhnaa tilmaamaa go'ay tulmooni badnaa geerida timiyey xaq baa tahlada rabbi baa dhimasho tebisee tanise urugiyo tiiraanyo badnaa tusmada qarankaa ku taami jiro bulshada tuman baa ku toosi jirto markii tashigiyo taladu ku adkayd markii tusbaxiyo tiradu ka furnayd raggii tiirkiyo tabaha u dhigay ayuu tusayiyo tilmaanu ahaa waxaa tacab iyo tilmaan jidhi toosi oo talisaba halkaadu tartay ku taabagaleen ducadu waa tiir noolaysu tabsho aadmigu tamar kale tolow ma lehee balaantiriye aamin ugu tara rabbow togagii fardowsa tagaa rabbow janna taxan tilmaan ku helaa rabbow tacabiye nimcada taabtaa rabbow camal togan aakhiro la tagaa rabbow ambiyada towraad lagu taxay rabbow taliyaha ijiin lagu tolay rabbow taliyaha ijiin lagu tolay rabbow tabiyaha furqaan soo tumay rususha tirada rabbow ag tagaa asxaabta la tabay safkooda tagaa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiya tiir baa naga baxay tusaale mudnaa gob baa naga tegay tudhaalo badnaa tog baa naga gudhay tashigu ku xidhnaa tiriig baa damay tuulada u shidhnaa tilmaamaa go'ay tulmooni badnaa talada rabbi baa dhimasho tebisee tanise urugiyo tiiraanyo badnaa tusmada qarankaa ku taami jiro bulshada tuman baa ku toosi jirto markii tashigiyo taladu ku adkayd markii tusbaxiyo tiradu ka furnayd raggii tiirkiyo tabaha u dhigay ayuu tusayiyo tilmaanu ahaa waxaa tacab iyo tilmaan jidhi toosi oo talisaba halkaadu tartay ku taabagaleen ducadu waa tiir noolaysu tabsho aadmigu tamar kale tolow ma lehee balaantiriye aamin ugu tara rabbow togagii fardowsa tagaa rabbow janna taxan tilmaan ku helaa rabbow tacabiye nimcada taabtaa rabbow camal togan aakhiro la tagaa rabbow ambiyada towraad lagu taxay rabbow taliyaha ijiin lagu tolay rabbow taliyaha ijiin lagu tolay rabbow tabiyaha furqaan soo tumay rususha tirada rabbow ag tagaa asxaabta la tabay safkooda tagaa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiya waxaan rabaa qof kasta oo booliiska Soomaaliyeed darajo kasta iyo fadhi kasta ka tirsan yahay inuu noqdo farxaan oo kale markii aan maqlay geerida Jenaraal Farxaan oo daqiiqado yar oo kooban koor aan wada hadalnay waan rumaysan waayey qofkii ugu horreeyay ii sheegayna waxa uu ahaa sargaal ka tirsan dhallinyaradii la socotay laakiin maanta waxaan dul taaganahay meydka allaha u naxariistay saaxiibkee taliyaheygii waxaa sidaa yidhi mid ka mida saraakiisha haramcad oo maanta halkan ilintu ceshan waayey dhallinyarada kooxdan aad u jeeddaan waa dhallinyaradii hurmuudka uu ahaa Jenaraal Farxaan maanta waxay aasayaan saaxiibkood hurmuudkoodii sargaalkoodii ugu sarreeyay ee ku dayan jireen balse maanta dhammaantood way ceshan waayeen ilinta waxaa ka soo qayb galay aaska allaha u naxariistay marxuumka ehelkiisa madaxda ugu sarrayso qeybaha kala duwan ee bulshada dhammaan dadkii halkan ka soo qayb galay waxay qireen inuu ahaa Farxaan haliyey u dhintay dalkiisa iyo dadkiisa shakhsiga ugu dhow buu ahaa anigii ugu dhow geesi buu ahaa wuxuu ahaa shumac soo baxayey oo dhallinyarada da'diisa ahi
u ahaa fiyooro soo socda wuxuu model u ahaa 2 milyan oo dhalinyaro oo xamar joogta ayaa Farxaan oo kale waxaa maskaxdayda ku soo dhacay markii high schoolaadka imtixaanaadka dhammaadeen oo 27,000 oo arday ay imtixaan galayeen uu amni ku soo dhameeyay oo isaga kor u qaadayeen waxaan rabaa inaan la hadlo ciidanka booliiska Soomaaliyeed inaan la hadlo waxaan rabaa qof kasta oo booliiska Soomaaliyeed darajo kasta iyo fadhi kasta ka tirsan yahay inuu noqdo Farxaan oo kale waxaan ugu magac daray xeradan aan maanta joogno oo ah xarunta ciidanka Haramcad laga bilaabo maanta waxaa loo bixinayaa ama loo bixiyay ama aan ku dhawaaqayaa xarunta Haramcad ee Generaal Farxaan magacaas qaadan doontaan magacaasaana ugu imaan doontaan si magaciisu uu u noolaado isaga iyo intii la halmaasho laakiin waqti qof waliba waqti uu leeyahay asaguna waqtigiisu maanta ku ekaa waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto Generaal Farxaan annagana gadaashiisa ilaahay nama fidneeyo intaa kadib waxaan rajaynayaa in ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada gobolka Banaadir inay maanta Generaal Farxaan wuxuu ku baxay gacanta cadawga asagoo ka dagaalamayo meel ka baxsan gobolka Banaadir ee caasimadda lana dagaalamayo kooxaha argixisada waxaan rajaynayaa in qof waliba uu dareemi doono in cadawgan haddii aan lala diriirin in qof waliba loogu soo galayo gurigiisa waxaan leeyahay iyadoo lala diriraayo oo goobahay joogaan lagula diriraayo ha la dhinto hana la dhaawacmo taasaa sharaf iyo sumcad leh waxaan leeyahay maantay waan jeclayn inuu joogo uu noolaado laakiin meesha uu ku baxay wuxuu ahaa shahiid iyo ummadda Soomaaliyeedba waxaan rabaa inaan halkan tacsi uga soo gudbiyo geerida ku timid walaalkeen wiilkeennii Generaal Farxaan Qaroole iyo intii kale ee la shahiiday howlgalkii dalka looga sifeynayay kooxaha khawaarijta intii kula shahiiday tacsi baan u gudbinaynaa geeridu waa xaq laakiin waxaa kala sharaf badan meesha lagu dhintaa kala sharaf badan wuxuu dhintay Farxaan iyo raggii la dhintayba ay ku shahiideen ayagoo cadawga baacsanaya ayagoo dalkooda iyo diintooda difaacaya ayagoo sharaftii iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed u taagan ayay shahiideen waxaanan ilaahay agtiisa uga rajaynaynaa inuu u aqbalo shahaadadooda qoyska si gaara aabbaha iyo hooyada iyo xaasaska iyo carruurtiisiina waxaan leenahay sabar iyo iimaan Allah ka siiyo iyo bedel khayr qaba waxaan rabaa fariintayda ku xigtaa waxay tahay kooxaha khawaarijtu dee waxay caadaysteen inay ummadda Soomaaliyeed laayaan aysan qofna u turin ilmaha yarka hooyada aabbaha sheekha odayga waxaana socda dagaal looga sifeynaya dalka arrinta Farxaan taliyaha Farxaan dhimashadiisa ma hakin doonto halgankii lagu xoreynayay kooxaha khawaarijta dalka loogu xoreynayay bal iska daaya waxay sii dhiirigelinaysaa carada ummadda Soomaaliyeed u qabto kooxahaas waayo daday jecel yihiin taliyaalay jecel yihiin iyo wiilal la jecel yahay ayay faragashadeen oo dileen iyo odayaasha hiiraan ku dhintay oday cilmi guura uu ka mid yahay dhammaantood ehelada iyo kulli oo tacsiyanayna waxaana rajaynaynaa insha Allah tacaala dhiigga taliya Farxaan iyo ciidanka kale ee qalabka sida iyo shacabka Soomaaliyeed ee daadanaya inuu noqon doono kii dalka lagu sifayn lahaa waana yahay waana loo guntaday fariintii madaxweynuhuna maanta way ahayd sidaas waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed ha u soo wada jeestaan in kooxihii waa dabacsan yihiin qaraxye iyo miino iyo tabar ka dhigteen iyo qof isqarxinaya meeshii u dambaysayna marayaan waxaan leenahay waa la daba tiri doonaa insha Allah tacaala halgankuna waa siduu u bilowday dhiiggaana waxaa lagu sifayn doonaa Farxaanna meelo waaweyn baa lagu magac dari doonaa taliyaha haddii ilaahay yiraahdo aad iyo aad baan u mahadsantihiin taliska taliyaha iyo waxaan rajaynaynaa inuu naga gudoomo anigoo guddiga iyo qabanqaabada ee xafiiska Prime Ministerku soo magacaabay wakiil uga ahaa tacsida si gaarana waxaan rajaynaynaa ilaahay idankiis in ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay u wada guntato qofma maalin bay ay rabaan inay gaadaan laakiin hadda halgan xoogan oo wada socda oo shacabkii iyo dawladdii ayaa socday iyo adduunkii in
markaan lagu soo gebagabeeyo arrintan saxaafaddana waxaan ka codsanaynaa halganka inay qayb ka noqdaan brobagandada oo kooxaha argagixisada iyo maaragtay niyad jebinta dadka halgamayana inay ka waantoobaan waayo waa ogtihiin shalay waxaa dhintay saaxiibkiin ayay qarxiyeen idinkuna sidaasoo kale in kaloo tiro badanna way qarxiyeen waxaa weeye kooxahaas hadalkooda faafinta hadalkooda wuxuu qayb ka yahay in la dhiirogeliyo waxay samaynayaan waxaan rabnaa saxaafaddu inay waajib gaara iska saarto furant culimmadii dagaalku waa ku jiraan odayaashii waa ku jiraan ciidankii waa ku jiraa shacabkii waa ku jiraa laakiin saxaafadda waxaan rabnaa dhexdhexaad baan nahay dhexdhexaad lagama noqon karo dagaalka kooxaha argixisada dhexdhexaad lagama noqon karo marka inay sawarin wax kastoo mooralka kooxda argagixisada kor u qaadaya inay sawarin meel baa ciidan ka baxeen heblaayaa xagga ka baxday hebel baa xagga tegey waxaasoo dhan waxaa weeye waxay qayb ka tahay